wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland oo wali gobolka saaxil ka wada tababarka iyo wacyigelinta ku saabsan ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta ayaa maantana waxa wacyigelintan ka fulisay deegaano hoos yimaada degmada Sheekh ee gobolka saaxil. deegaanada maanta wasaaradda deegaanka ka fulisay wacyigelintana waxa kamid ahaa suuq sade, gugux, gidhays, cagaari, ximin iyo qoyto oo ka tirsan gobolka Togdheer. waxaana wacyigelintan waday agaasimaha waaxda duurjoogta iyo qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda duurjoogta maamulaha degmada Sheekh ee wasaaradda deegaanka. dadweynaha deegaanadaasi ku dhaqanaya si weyn u soo dhaweeyay wacyigelintan iyo tababarkan ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta. baan u soo dhaweynayna waxaana u socdaan dan ay leeyihiin maaha waa dan ummaddu leedahay. danta ummadana waxa weeye nin waliba in loo kacaabaa fiican. ugaadhi way joogtaa, deeradii baa joogta, waxaa joogta garanuugtii, gorayadii ilaa caashabari buu nagaga soo simay in la ilaashado. inaguna shaydaan baabaynu u niqin. marka wax wanaagsan oo wacyigelin buu agaasimuhu noo keen. soo dhaweynaa boqolkiiba boqol baan ku soo dhaweynaa. waayo waxay wacyigelin ballaaran ayay noo qabteen. wacyigelinta ballaaran ay noo qabteen waxa weeyaan waa khayraadka dhulka ku jira weeye. waa duurjoogta nooc kastaba ha ahaato ilaa ka ugu yar ilaa ka ugu weyn. kaasay naga wacyigeliyeen oo wacyigelinta ay noogu soo qabteen inaan la waxyeelaynin, inaan cidi u imanin, inaan dad ugaarsanaya oo dalalka ka yimi oo haddii baydmayo ka ugaarsanaya aanay noo imanin oo aanu iska jirno. wacyigelinta ballaaran bayna si annaguna waanu ka ajiibnay, aad iyo aad baan uga ajiibnay. horta iyaga waa soo dhaweynayna, aad iyo aad baan soo dhaweynayna, waana u mahadnaqayna. waxa kale aynu ka hadlaynaa waxa la inoo sheegay ee sharciga ah ee la inoo qodobeeyay waa dadaal weyn oo maanta ka hor aanaynu arag inana soo gaadhin. dadaalka laftiisa waxa weeye de muwaadiniin baynu nahay inaynu dhaqan gelino oo inagu hawl gelino ayaa la inooga baahan yahay oo aynu qaadashadiisa kaga dhabayno. saadaradeed waxa weeye war waxa waan deegaanka hadaan nahay deegaanka reer guux waanu qaadanay arrinka. dhankoodana agaasimaha waaxda duurjoogta iyo maamulaha degmada Sheekh ee wasaaradda deegaanka ayaa iyaguna dadka halkaasi kala hadlay iyagoo u sheegay muhiimadda deegaanku u leeyahay waddan. waxaan u soconaa wacyigelin in bulshadaanu baraarujino aan ku baraarujino sidii ay duurjoogta duurkooda ku nool u ilaalin lahaayeen. fariintaasaan doonaynaa inaynu wada qaadno maadaama aad odayaasha magaalada tihiin iyo dadkii mas-uulka ahaa inaad muxuu ahaa fariinta muxuu ahaa wada gaarsiisaan. marka waxaan doonaynaa inaynu duurjoogta mayeedhaanka aynu duurkeeda ku ilaalino, inagu iswacyigelino ka deegaan ahaan aynu isku baraarujino saynu ilaalin lahayn. fariinta qofba qofka kala gaarsiiyo. dadka deegaanadu iyagunbaa duurjoogtooda ilaashada, iyagay quruxu yihiin. cid wal oo muxuu ahaa wax u geysanaysana iyagunbaa tallaabooyin ka qaada. annaguna gacan buuxdaanu siinaa, waanu caawinaa. sida ay duurjoogta u ilaaliyaanna ka wasaarad ahaan aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa. deegaankan gugux wuxuu ka mid yahay deegaanka khayraadka dabiiciga ahi uu ku duugan yahay, amase hadday tahay kaymaha iyo duurjoogta labadaba. runtii dadka deegaankani waxa weeyaan waa dad aad iyo aad u wanaagsan. bilxaqiiqatan markaad buurta wagar aad u baxdo sida ay kaynta u ilaaliyeen, kayntii oo dhiltii dayibkii iyo dheentii iyo woobkii iyo waabaygii iyo dhiltii noocyadii kala duwanaa oo runtii maxay ahayday si aad u qiimo leh u baxday. waxaanay ku timi dadaalka iyo ilaalinta ay ka galeen jeesto oo duurjoogta deegaankan ku nool. dadka deegaankan iyo guud ahaan geyiga Soomaaliland waxa weeye waa khayraad qaranku leeyahay in dhinac looga soo wada jeesto wasaarad iyo deegaan ahaanba. taasi midaan isla qaadanay bay ahayd. maantana waxaanu u soconnaa wacyigelin ku saabsan ilaalinta duurjoogta.